waxaan la dagaalami doonaa maamul xumida iyo musuqmaasuqa baahay ee ka jira dalka Soomaaliya. hal mar dad aad sirtay mar kale ha sugin. waxaan soo saari doonaa khayraadka dihan ee dalkeena waxaan ballan qaadayaa in ummadda Soomaaliyeed si cadaalad ah oo siman khayraadkaasi ay u qaybsato. dadka marka talada hore u soo qabtayo liiskaaga si fiican iskaga baar. marka adiga aad iska heshid cadaalad wax un dadka ku sheegatid mujtamaca hore imaw markaas ka bacdi weydiiso laakiin nin kaarkiisaba uu gubtay uu madow yahay oo cadaalad dara ku caanbaxay qabyaalad ku caanbaxay kala qaybin ku caanbaxay iimaanka Allah uu geliyo. waxaan haddii Alle idmo aan soo celin doonaa haybadii qaranka Soomaaliyeed oo ay ugu horeyso dhismaha ciidanka qalabka sida sidoo kale waxaan xoog saari doonaa soo celinta amarka iyo kala dambeynta guud ee dalka Soomaaliya. in nin intuu iska soo istaago sida lagu bartay siyaasi oo uu ballan qaadiyo cadaalad baan samaynahayaa ceelkan ma artay qodahayaa webigan macaanaynahayaa dadka Soomaaliyeed dhan baan isu keenahayaa wax kasto idinka aad u baahantiin baan idin siinahayaa Soomaalida caruurteeda dhan baan wax barahayaa saaxiibow sheekadantii daanyeerka waa laga yimid waxaan la dagaalami doonaa maamul xumida iyo musuqmaasuqa baahay ee ka jira dalka Soomaaliya. ummadan uma baahna siyaasi beenlow ah oo ummadda wax uu sheegayo oo ilaahay ku diinta noo sheegay yaquluna bi afwaahihim ma laysa fi qulubihim layriya waxay afkooda ka sheegayaan waxaan qalbigooda ku jirin ama ninkii shaacirka ah uu yiri yu'tika min taraf lisani halawa afka markuu ka hadlayo wuxuu ku siinayaa malab ويروغك كما يروغ الثعلب يا دبن دابيada soo cadmada saliida wacdi oo kale dhaq ya markuu muraadkiisa uu gaaro ya sheekhu mar idaga Allah dago ya sidoo kale waxaan la dagaalami doonaa jahliga iyo siyaasadda qabyaaladeysan ee ka jirta dalka Soomaaliya maanta. la yuldagu almu'minu marratayn min juhrin waahid rasuulku sallallahu alayhi wasallam mu'min hal god laba jeer laga wada qaniin dadka qaarna waa idin baranay xisbigiin iska wata waxa rabtaan sheega magaca rabtiin ee fiican u soo bixiya kulli xisbi bima ladayhi farixun